self-defeating belief ayaa inagu badan innaga haddaynu nahay Soomaali. Anuu miyaan karayaa, miyaan awoodaa, waa layla yaabi, waa lay eedayn, xilkaa layga qaaday, something waxa la yidhaahdaa self prisoner. adigu inaad isgumaysato self prisoner adigu iyo self conflict adigu inaad iskhilaafto hal shakhsi isagu ma iskhilaafa dookhaya naftaa ii heshiiyey that self conflict jinkalaata madhooshaas ulam nagar mismaari masluwa aragti dubba haday kugu jirto shay kasta misbaar baad moodtid sharafta iyo mudnaanta iyo qadarinta ay ummaddu ku haysaay waxa weeye hadba wanaaga qalbigaaga ku jiray inta u dhan yahay ma aha maadaama dar fiican xidhatay amba qurux badnaatay amba cadaatay amba talaabo wanaagsanaatay ma aha ummaddu waxa ay ku qadarinaysaa ummaddu waxa ay kugu qadaraysaa wanaaga qalbigaaga ku jiray hadba inta uu dhan yahay ayay ummaddu ku haysaa xubbi iyo kalgacal guusha dhalinyartu success inay noqoto maxaa marka mawduuca aynu dooranay runtii waa mawduuc adag oo waa attitudinal change guushuna waxay ka timaadaa qalbiga ibn aadanka guul daraduna waxay ka timaadaa qalbiga ibn aadanka if iyo aakhiraba waxa lagu liibaanaa waa qalbigaaga waxa ku jira waxa la yiraahdaa haan waxaad ku shubato baad ka soo shubata qalbigu suugaan yahanyaal badan baa maray qaar baa yidhi Soomaalidu maxay guul la gaari lahayd wuxuu yidhi wax kale ay ku sidata halkay waana gelin that is the part qaybta aynu rabnay inaynu maanta ka hadalno waa qaybta weyn ta kale wuxuu yidhi cirka nimanka sahanka u diray ee caadka ka hayaamay cadceed iyo dayaxa dawladahan caawa kala sheegtay caynkeenna soo wada mare iyo caado liiti ah ee carfi wuxuu ka muuqdaa shacbiga caafimaad qaba caafimaad qabku marka in terms of what waa qalbigu qaybtaas way qaybta ay sirta dhani ku jirta dhan kale diiniyan marka aynu ka dayno qaybta qalbigu waxa la yiraahdaa xadiiskii marka laa ilaaha illa allah safad la saaro ee cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysana safad la saaro laa ilaaha illa allah waa ka miisaan badan sooma qalbigu waa shayga miisaanka leh shayga qaaday way marka waad qiyaasi kartaa imaginary shayga balladkiisu iyo muggiisu inta uu leeyahay waad qiyaasi kartaa xadiiskii kale waxa uu ahaa waslad waxa jirta jirka kamid oo haday wasladaasi xumaato dhammaan jirku xumaado haday wasladaasi hagaagtana dhammaan jirku hagaago waa in terms of religion marka aynu ka hadlo wasladaasi waa maxay innahu qalbiga weeyaan marka cidii guul doonaysay in this life of the world adduunyadan haddaad doonayso in aad gaadho guul cid walba waa inay qalbigeeda dib ugu noqoto inay cid kale fakarta ku fiiqdama guushu waxa ay ku jirtaa gudaheena waxa bank baynu leenahay ilaahay ina siiyey ka rabnaa ibn aadan waa qaybta ay ku jirto xawayaanka dhan waxaynu kaga duwanahay laba shay inta aan ogahay amba inta aan qoraal ku arkay luqadda iyo qalbigaynu ku kala duwanahay dameerku timo uu leeyahay ana timaan leh cidii uu leeyahay ana cidii aan leh inta kale waynu wadaagnaa laakiin waxa ay labada shay ee aynaan wadaagin ee ka rabnaa ibn aadan ku jirtay waa luqadda iyo qalbiga ibn aadan allamahu albayaan suurada ar-rahmaan bay ku jirtaa inuu ilaahay noogu galad sheeganayo luqadda hadiyadaha uu ina siiyay in cid kale la siinin inay tahay qalbigu waa kamid